isaaq mid baan kula dardaarmay isaaqoo waxa aad doonatay waa cadaabka aakhir intaan la gaarin adduunka waxaad ku dooratay dagaal iyo colaad xuuti baa hadda ku hanjabay tan hadda socoto reer waqooyi gardaran waan gaaloobaynadan Israa'iil baan u galeynaa hadda ma ay bilaabay cigaal oo 20 sano ka hore la shaydaan hadduu ay nala gasho shaydaankan ka doonayna aqoonsi ayaa maalmood la soo saaray waqooyina iyadana isma haysato hawii waxaan weydiinaa aaw dadka kale aaw Puntland aaw Jubbaland aaw Daarood aaw Soomaalida kale adiga kii waxa dawlad ka dhigay oo hadda aad indhaha u taagaysa maxay tahay rahmatullaahi wa barakaatu waa Xuseen Buraxa oo Mandheero joogo siyaasadda Soomaaliya aad inaan uga shakay waa nacba laakiin maanta danta ay ugu khasabtay inaan ka hadlo arrintan Soomaaliya ka socoto aan ka bilaabo araar baan dhigani Rabiica ninkii la dhihi jiray asxaabiga ahaa iyo Sayid Abubakar mar ay isku dhaceen oo beereero Saudin ay isku qabsadeen waliba isagu uu siiyay Abubakar uu siiyay Rabiica ay isku qabsadeen ay waxa dhacday muranka markuu ka hadlayo Sayid Abubakar hadal ka dhacay isla daqiiqadii uu fahmay wuxuu yiri Rabiicow ama iga aarso ama icafi ama wax u needah wuxuu yiri kumana caynaayo kumana cafinayo waxaan ku sheegayna male Sayid Abubakar wuxuu yiri haday taa dhacdo nabiga u tageena nabigan kugu dacweyn oo tagu yiri Sayid Abubakar wuu soo dhaqaaqay Rabiican wuu soo daba kacay Rabiican niman ilmaadeeradiis ah ka hor imaaday Sayid Abubakar muxuu soo waalay wuu ka gardarnaa hadana dacwada wato maxayd anaga ku raacaynay dheen wuxuu yiri niman yahow iga dhageysta dan haday idin kugu jirta iga noqdo Rabiica dhahay dan haday idin kugu jirto iga noqdo ninka ana haysto waa Sayid Abubakar hadduu ogaado Sayid Abubakar inaad idin heelaysaan Sayid Abubakar wuu xanaaqay markuu xanaaqa Sayid Abubakar waxa ku xigo nabiga oo xanaaqa nabiga hadduu xanaaqana ilaahay baa xanaaqay ilaahay hadduu xanaaqana reerka naga macal aniga nag baa noqonaynaa marka waxay danta ku jirtaa ana iyo Sayid Abubakar kali aan usu tagnay nabiga aan wada tagnay iga hara maxaa dhacuu yiri Abubakar nabiga agtiisa aad buu ugu weyn nabigana ilaahay agtiisa aad buu ugu weyn waxaan way isku xireen marka waxa deeshaan iga hara nabiga u tagana Sayid Abubakar markuu hadlay wuxuu yiri nabiga weyn ana ninkan baa meel isku qabsanay hadal yaroo qadaf ay ga dhacay markii waan ka qoomamay garkaan qabsaday walaalow icafi baan iri walaalow iga aarsaan iri labada wudiido haduu ku imaado adaan ku imaadina kala bix nabigu wuxuu yiri calayhi salaatu wassalaam Rabiicow waad hagaajisay nin wax markuu ku dhaho lama dhaho ya ninka markuu wax ku dhaho looma jawaabo kumana caynay waxbana kaama sheegay hadaatay waad ku hagaagsanid laakiin waxaan ka codsanayaa Abubakar cafi أو نبي ومحان لها إله أبو بكر ودن بداف له دن بداف كي وضع هذا السؤال ما لا يتنتهي لو أنت أوكله سياسة الصومالية قال أهان مركي لو نقضوا صومالي وقوي صوماليا كرتران في الوقوي عالنك إيغو وذي كينين لحدنك بلا شروط حتى waxay dhaheen hadii aad arinta isku raaci weysaan baarlamaanka hortiisa shicibku waxay dhaheen mudaharaad ma sameeynayna aadan cad wuxuu ku yiri shuruud la imaada hormanaga diidanta shuruudda sheegaysa maxay Soomaali baan shuruud ma wadno aan isku darsan laba sano kadib Hibo Maxamed Ahest waxay tiri haye fudud habeenkan lahaaday hubsiinada habooneed haye fudud habeenkan lahaaday hubsiinada habooneed inqalaab yaro been baa dhacay
oo reer waqooyi ay sameeyeen jeneraalo waa la soo dhaafay waqtiga iyaga dadkii dowladda hayay iyo dadkii waqooyi ka imaaday dad macquul ah oo waxgarad ahayn wixii dhaca inta isu imaadeen bay ka heshiinayeen dowladda siyaad barre imaaday dowladda siyaad barre waqooyi dowladda siyaad barre waqooyi waxay siisay 5 wasiir madaxweyne ku xigeen way muujisay siyaad barre markuu tagay kadib baa marka waxaa dhacay walaahow 3 jabhadood oo Soomaaliya qaba siyaad barre ka bixisa SNM ku jirtay waxay ku heshiiyeen xamar aan iskugu imaano aan tashano arinta iyada waxaa helay muqdisho dadka degan nin kale doorteen Umar Artay ra'iisul wasaare ku xigeen ka dhigeen Caydiid Cali Mahda isku dhacay buuqa dhacay reer waqooyi waxay dhaheen marka 60kiina waana la xumay haddana waana la xumay oo balanta waana looga baxay aan goosano inta hore ku qumayn tan hadda socoto reer waqooyi gardaran aan gaaloobaynaa Israa'iil baan u galeynaa hadda ma ay bilaabeen cigaal oo 20 sano ka hore la shaydaan haddii ay nala gasho shaydaankan ka doonayna aqoonsi ayaa maalmood la soo saaray sooraan wuxuu yiri war hada macdaabkan ka doonana bahash sooraan wuxuu ahaa nin aad u aqli badan waxa dhacay inuu ogaad moodaa maanta taala marka laakiin iyadoo ay tahay hadda ma waxa dhahnaa hawiye iyo reer waqooyi aseesto mise Soomaali ee reer waqooyi aseesto hawiye waxaan weydiinayaa Soomaalida kale aaway intaad ku tuurtay waqooyina iyadan isma haysato hawiye waxaan weydiinayaa aaw dadka kale aaw Puntland aaw Jubbaland aaw Daarood aaw Soomaalida kale adiga kii waxa dawlad ka dhigay oo hadda aad indhaha u taagaysa maxay tahay waxaad mashquul ku ahayd qabuurafaad gurudumis dhibaato Soomaali way ka kala carartay maanta dhiiqad adag ku jirta isbax oo Soomaali iyo waqooyi isaaq ka dhaxay ma jirto arinta hadda Xasan Sheekh iyo waxay haysataa Cabdiraxmaan Ciro Xasan Sheekh oo dhiiqada sad uga bixin lahayd falankeeda raadso reer waqooyi Soomaaliya ilaahay diintiisa ka bixina إسرائيل بان هذا ده وان قالوا نيو إذن الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم كوي يجروي كواحد أثر عليهم إلهي أوقبك السجود بان أركاي لين علنك إسرائيل كسجوداي أو درب إسرائيل عابدان لنكاين أركاي ينلك راح تجين بهاش لكن تنبقى أولا أنا وحصار حسن شيخ هوي صومالي أو صومالي تدقيس حسن شيخو Soomaali midaysan oo dawlad leh oo ciidamo leh ayuu farmaajo kugu wareejiyay aawa wixii iyaga ah marka hawiye hadaad waxba aqoonin dadka mashquulin Soomaali hawiye cudur ugu horeeyo oo dhacay ma jirto waxaad arkaysaa Soomaali laba nin Soomaali laga qabto laba nin idin hayasho afartan nin Soomaali hadii laga qabto Soomaaliya nabad bay noqon موسى سودي لحو يبور أبور نك الله حلاقة قبته أجيل هلا جلي محمد علي جيدي في زروزاري هو محمد علي جيدي اللي ده هاي نك قروح البدن أو هرش بين لما دحونا كأهانجر أو قروح البدن أو هوي وقرحن لما ده سنة هالعناته أفرتانين هلا قبته صوماليا ماشي إيمان تكوسعته وحاول فانتشروا في الأرض هوي دارود ومقيه Soomaali kale waa maqantahay waxaad haysaan hawiye mara dawladnimo ma taqaanaan midnimo ma taqaanaan meel idinka soo galay meel idinku haysan ma kala taqaanaan marka hawiye iyo isaaq baa isheestee saad u kala bixil heedan idinka idin jirtaa Soomaalida kale waxa ku ma jirto wabillahi tawfiiq mid baan kula dardaarmay isaaq oo waxa aad doonato waa cadaabka aakhir intaan la gaarin adduunka waxaad ku dooratay dagaal iyo colaad xuuti baa hadda ku hanjabay حوت مدفع وكطورة حوتين تمشي يمن أي دقيقين إسرائيل لما كانوا كيلومتر أجرة أدينا صدح بقول كيلومتر بالأجرته حتى جنتالة وين ما مدفع وصوت وراب كود عكرة مركا أنا وحنا إساقو جنتالة جرا
xuuti baa ku hanjabayso xuuti hadduu soo tuuro hub oo hargeyso uu ku dhaco oo burco uu ku dhaco oo meeshan dekadale uu ku dhaco marka dab wuxuu soo gaari muqdisho hubkaas in macdanayaal intaad leedihiin hana la aqoonsada cadaab hanoo soo jiidina cadaabkana aabbo waxaa u xasan sheekh iyo hawiye aabbo u isaaq iyo soomaali way wada hadli jirtay xasan sheekha wuxuu yiri looma baaqanayo daarood aaway markii wuxuu yiri looma baaqanayo habargidan aaway markii wuxuu yiri looma baaqanayo ma abgaal kaliya dawlad noqon marka xasan sheekhow deeqada aad ku jirta adaa keensatay ka baxsaad oo bixileed waxaan ku gabagabeynayaa colaadan hadda bilaabatay soomaali iyo isaaq ma ah waa hawiye isaaq taasoo cad baan sheegayaa weligayna soomaaliya siyaasadeeda maantan ka hadlay maantan waxaan taaganahay buur aboor iyo muuse suude cimri xarig hal xidho cali maxamed geedi iyo cosoble ninka la dhahana karbaash ha lagu qaraaco afartan inay soomaali ka digila-ada oo qabyaalada wada waa afartaas inta kale soomaaho waa raacid marba dhinaca la rabo loo oryanayo hadda reer muqdisho fiiri waxay cabaadayeen qabuuranaada la faagtay guryaha nagaa la dudumiyey daraad markuu uu yiri madaxweynaha garabaan u baahanay reer muqdisho oo dhan soo baxay war ku guryaha lagu dudumiyey idinka ma dhahan oo cabaaday ya maxaa waxan ma qabiil baad u soo baxdeen mise Soomaaliyana u soo baxdeen guryaha laga dudumiyey qabuurana laga faagay ilmaha iskuulka aadeen markay soo noqdeen guriga dudumana imaadeen wixii lahaa soo idinka ma ahan xashin shaq oo intiis maxaad ugu soo baxdeen ماشي Soomaaliyana iyo Muslimnimo iyo diin midna ma taalo qabiil baa yaal qabiil intuu yaalana horumar aad gaaraysan mal wa billahi tawfiiq